الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الأحبة في الله بشي رمضان أيام كل حشرناه برتمه هذه بين السوق عني مال ما بدوات تجن مال ما هتجي مد مينان dareemin waxayna tusaale u tahay sida waqtigu u socdo cimriguna u dhamaanayo inaguna inaan u dareemeyn وهكذا insaanka sida uu u mashquulsan yahay zamankuna uu u goynayo ayay tiisu ugu imaanaysaa ilmihii yaraa ee shalay naaska nuugayay maanta waa caruur kii caruurta ahaa shalayna maanta waa shaab kii shaabka ahaa shalayna maanta waa gadhmadoobe kii gadhmadoobaha ahaa shalayna maanta waa oday ay cirra ka muuqato kii shalay odayga ahaana maanta waa cantatabay ama qabri buu galay sidaas daraaddeed ma dareemaysi zamanku siduu kuu goynayo kuu marayo adiguna maalmaha iyo laxadaadka iyo ilbiriqsiga iyo saacadaha ku maraya tahay adigoo dhanba maalin kasta oo saacadi ku marto ilbiriqsi ku maro waqtigaagii qaar baa tagay bal u fiirso bishii shalay dhalatay maanta meeshaasay maraysaa mana dareensanin intana dhaaftay wahaakada waqtigu saasuu inoo goynaya khasnad bay ahayd maalmaha tagay khasnaday ahaayeen nin walbana wuxuu gashaday baa ugu jira ninkii wanaag gashadayna wanaag buu barri kala bixi doonaa ninkii xumaan gashadayna xumaan buu ka goosan doonaayoo kala bixi doonaa ninkii dayacayna isagaa isdayacay inta laabani aan ku fara adaygu oo aynu ku dadaalno maalmaha laaban insha allahu tacaala inaynu khayr badan gashanno si aynu maalinta aakhira ugu baxsanno nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi walaalayaal waxaa ka sugan كما في صحيح البخاري ومسلم نبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس نبي محمد صلى الله عليه وسلم دتكو ugu deeqsisan deeqsinimadiisuna waxay ugu badnayd oo ugu darnayd oo ugu sidatay markii Ramadaan inta la galo Jibriil uu la kulmo u yimaado Quraanka uu la darso marka iyada nabigu salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi khayrka iyo wanaaga wuxuu uga degdeg badnaa dabaysha la diray ee socota ee raxmadda ilaahay wada iyo roobka nabiga uga degdeg badnaa khayraadka iyo wanaaga salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi kana ajwad an-nas dadku ugu deeqsisana salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi juudka waxa la yiraahdaa deeqsinimadan xadiidku ka hadlayo juudka lama yiraahdo xoolo ood bixisa kaliya laakiin juudka waxa laga wadaa sida uu leeyahay xaafid ibn hajar alayhi rahmatullah wax kasta oo mudan inaad bixiso cidda mudanna inaad siiso wax kasta oo mudan inaad bixiso xoolihii inaad bixiso oo dadkii mudnaa aad siiso waa nooc juudka ka mid ah cilmigii iyo aqoontii ilaahay ku siiyay inaad bixiso oo intii rabtay aad siisood gaarsiiso waa nooc juudka ka mid ah akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan inaad bixiso dadka kula dhaqanto waa nooc juudka ka mid ah wahaakada xoogaaga inaad bixiso oo dadka ku caawiso waa nooc juudka ka mid ah nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamu alayhi intaba dadku ugu siday kana ajwad an-nas salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sidaas daraadeed ayaa ummadiisa laga rabaa in juudka ay la timaado oo bukhliga iyo faraadayga xirsiga inuu ruuxu naftiisa ka tarbiyeeyo la doonaya rasuulkeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi kana asqa an-nas waqtiga oo dhan xilli walba lama gaari jirin sida ay saxaabadu leeyihiin ridwaanullaahi calayhim waligii inta wax la weydiiyay maya ma dhihin hadduu hayo ma hayo laakiin hadduu hayo weligii maya ma dhihin bal u fiirsada xaajada jirtay
iyo baahida jirtay iyo mujtamacu suu u baahnaa iyo gaajada jirtay iyo su'aasha nabiga ku badnay salawaatu rabbi wa salaamu calayh iyo isagoon hal mar laga haynin asagoo maya yidhi salawaatu rabbi wa salaamu calayh yaa heli kara waa maya waa darajo aad u sarraysa waa marmarka qaarkood nin acraabiya uusan garanaynin baa isaga imaanaya nabiga salawaatu rabbi wa salaamu calayh waa acraabi xataa saxaabadiisii u yaqaanay ma ah acraabi baa u imaanaya markaasuu wax weydiisanaya wuxuu siinayaa ari aan tiro lahayn xoolo aan la tirin karin buu siinayaa markaasuu reerkiisii u tagayo qoyskuu ka dhashay wuxuu leeyahay war tolkayow diinta islaamka qaata islaama war maxaa dhacay maxamed sida uu wax u bixinayo nin faqri iyo baahi ka baqaya maba aha buuri ilan bini aadamka inuu wax bixin waayo waxa ku kalifa inta badan gadaal dambuu ka baqaya war nin aan gadaal ka baqaynin oon faqri ka baqaynin ayaan soo arkay siduu wax u bixinaye war ninkaa diintiisa qaata ilaa heerkaas salawaatu rabbi wasalaamu calayh marmarka qaarkood nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi acraabtii iyo reebaadiyii saxaabadiisu waa yaqaaneen ixtiraamka nabigana waa yaqaaneen salawaatu rabbi wasalaamu calayh wax gacantiisa ku jira inaysan waayeeninna way ogaayeen saas daraaddeed maynan cadaadin jirin nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh laakiin marmarka qaarkood waxaa imaanaya acraab iska qalqallafsan acraab baa imaanaya markaasay nabiga sal alla alay wasalam ku dhegayaan maraday ku dhegayaan nasii ilaa nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh geed xanan ah oo qodax leh siduu uga cararahayay uu galay oo maradii uu ka dafay oo intuu istaagay uu leeyahay war maradayda isiiya geedahaas dhulka ku yaala in la eg oo xoolaa maanta haddaan hayn lahaa waan idiin qaybin lahaa maydaan ii hesheen inaan ahay nin bakhayl ah walaa min been badan walaa nin fulay ah intaa midna layguma yaqaanee war maradayda isiiya wax ma hayeen salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh u fiirso saxaabadiisii baa la socda xunayn buu ka soo noqday waa dowlad salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa sanadkii sideedaad wamaca dalika acraabta marada ku dhegayso geedka ku riixaysa nasiibay leeyihiin deeqsinimada noocaasoo kale xagay ka jirtaa waay salawaatu rabbi wasalaamu calayh kaana ajwada annaas deeqsinimadaasi ummadiisuu barayaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh laakiin deeqsinimada nebigu sal alla alay wasalam waxay u badnayd bisha ramadaan oo goorta jibriil la kulmo qur-aankana la daraaseeya waxaa la isweydiiyey maxaa ka dhaxeeya deeqsinimada iyo ramadaan iyo qur-aankii oo la daraasaynaya maxaa calaaqada ka dhaxaysa ay tahay waxaa la leeyahay qur-aanka marka la daraaseeyo qur-aanku nafta wuxuu geliyaa haninimo taajirnimuu nafta geliyaa naftu markay taajirnimo iyo haninimo heshana waxbay bixisaayo way deeqdaa wakadalika bisha ramadaan munaasabad ayadana waxay leedahay inay iimaanka kordhiso markay iimaanka kordhisana oo deeqsinimadii iyo gacantiibaa furmaysa iyo ruuxu inuu khayrka gacantiisa iyo qalbigiisa u furo sidaas daraaddeed marka jibriil u yimaado qur-aanka la darso xaalad baa soo kordhaysa naftii haninimaa ku kordhaysa sidaas daraaddeed buu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xilligaasi juudkiisa iyo deeqdiisa ugu badnayd salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas daraaddeed baa qur-aanka ruuxa akhrinayee fahmay macnihiisana tadabburaya oo u fiirsanayaay qur-aanku uu kala dagaalamayaa waxa la yidhaahdo gacan adayga bakhaylnimada cishiga lexjeclada faraha badan qur-aanku wuxuu barayaa nafta ku tarbiyaynayaa inuu ruuxu noqdo ruux baadil ah waxaa nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi isla qisada arrintaasi tilmaamaysaa in bisha ramadaan iyo qur-aanka calaaqa khaasii ka dhaxayso lianna jibriil nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh bisha ramadaan habeen kasta oo ka miduu u imaan jiray ma aha mar ma aha laba goorna ma aha habeen kasta oo habeenada ramadaan ka mida jibriil baa soo degaya nebigu u imaanaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh maxaa la samaynayaa qur-aankii baa la isla darsayaa nebi maxamed iyo jibriil baa qur-aankii isla daraasaynaya habeen kasta oo ramadaan soo galo habeenada ramadaan ka mida bishani marka iyo qur-aanka xidhiir khaasaa ka dhexeeya nebigu saasuu sameeyey jibriil baa sidaas sameeyey qur-aanka laftiisaa tilmaamaya marka waa inuu mudnaan khaasa ay kula yeesho qur-aanku noloshaada ku yeesho bisha ramadaan waxaa kaleeto xadiidka aakhirkiisu tilmaamaya
نبينا صلوات ربي والسلام عليه مركي انتاسي أكلانتو رمضان باسو قلي جبريل با أيمد قرآن كي با ليسلا درسي مركا إساقا النبي صلى الله عليه وسلم خير كوحو أقدك دق بدنا بشا ضبيشا وضه نحريست الليل ضبيلها ضرورها وضه الروب كي نحريست إلهي وضه آتو ديرينيه نبيغا أقدق بدنا أقنا دق بدنا خيراتك waxay culimadu yiraahdaan saddex faa'iido ku jirta yani qaybta iyada xadiidka faa'iidada koowaad waxay tahay dabayshu markay socoto naxariista ilaahay ay wado waxa laga faa'iideysanayaa dawaam intii ilaahay ugu talagalay waa wadaysa waa daa'imaysa waxa halka laga fahmay nabi maxamed sallallahu rabbi wa sallam alayhi amalka iyo taa'ada bisha ramadaan waa daa'imi jireen ma goyn jireen kana amaluhu diima بل سندك أردن عمل كيسو كلا جو ملهين يا طاعة يا خير كلا جو ملهين قلب كلا هذا اللي فهم وحوي عموم النفع ضبيش مركي صعته أنت أي جادبة نفع جدوا وذا جارية ناله كيسي يريرا عيانكي حيوانكي آدمه بهائمتي جيده كل نفع جوا عميمية النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه بشهر رمضان مركي سوقشو خاصة نفع عام وددك وذقاره أي النبي قال لقيه لي شري صلوات ربي وسلامه عليه النوع والبلد ومدى توجيه هذا علمي هذا وحبريد هذا حوله هذا وحو هايو النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه نفكيس عام بوها وحاق قضب صدح هذا ولقى فهم يا قيبتا إيضا إنه النبي صلوات ربي وسلامه عليه بشهر رمضان مركي قشوه خير كإنه أدق دقي شري أو سندبي دقي شري أرنت أنا واحد الماميسا فبني آدم كقار بدن وكم إذا كرعة ودبلقة وقال بنا هيستوي عمل كمان تلو بهاي بريها ودبلقة عمل كبري إن لقبت مضن بريدا بها ودبلقة محايا لي وقتك هبطه ووقتك هذا شوكت اللحظة هي البرقسك هذا أتاجنته يوم بعد سكوبته وحي كذب بيا وقعن أور كشرته مجرنا يسد حالك أقول ونقول دونه سيد أصدراد عمل كهدب لجن هنا إسبر النفط هذا هبر وحلي هذا التصويف كيدب لج خير كأودك دك فاستبقوا الخيرات وناج خير كأسبق تما وترتمع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وبالترتن وزمن خيرات كالله ترتمه غير كائنات كهر مرتلا يسكود دايو زمن كوا زمن بركيسن انت اقبضا للدونية انو ككسبنو ساس دردد بالدونية بيشن بركيسن ولا ليال سي إلهي تبارك وتعالى انو قلنا حريستو نفحاتك إيا خيراتك بيش الدقينا انت اقبضا ان اقهلو وحلو بهي خيراتك ابواب تذك لقدسن انت ادك قادن كرتو ددك uga hormar quraanka akhriskiis sadaqaadka dadka caawintooda dadka dhibaataysan wax tarkooda soonk habeenka qiyaamkiisa khayraadka kala gidsan abwaabta kala duwan kulli inta aad ka qaadan karto ina dadka uga horeyn karto ugu day laana sida nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi maalinta qiyaamada ruux walba waxa looga yeedhi doonaa wixii uu badsan jiray irida uu jannada ku leeyahay baa looga yeeri doonaa dad baa irida sadaqada looga yeeri dad baa irida soonka looga yeeri dad baa irida salaada looga yeeri dad baa irida samafalka iyo wanaaga looga yeeri ninba irid baa looga yeeri Abu Bakar baa wuxuu yiri rasuulka Ilaahay iridaha soo dhan ruux looga wada yeeri doono ma jiraan oo irid walba magaciisa laga yeerin doono haabu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxana rajaynayaa inaad adigu kamid tahay isagu kamid buu ahaa laana baab walba umada waa kaga horeeyay radiyallahu ta'ala anhu wa arda sidaas daraadeed baab walba isku day inaad noqoto ruuxa u horeeya ee umada ugu sita khayrka ugu badanna ka qaata ibn adam ish ma shi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bih وكن كما شئت فكما تدين تدان صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين
وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله